بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم توفقوا لما تحب وترضى aad iyo aad baa u mahadsan yihiin dhalinyaradii saraakiishii ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed waajibaadka qiimaha badan saaka gutay waxaad aragtaan waa dhufaysadii cadawga ay qoteen saaka waxaan waa baabuur god loogu talagalay intaan la eg waxaan hore u soo marnay difaaci adkaa tarjayga ahaa ay qoteen ma qodin arrintan saa aragtaan dad gacantiisa laguma qodin cagaf baa qortay waa aragtaan cagaf tiraadkeedii waa aragtaan cagaftan lagama lahayn Soomaaliya waxaan rabnaa dawladda aan dariska nahay ee Kenya oo haddana ku dhex carareen dadka burcadka ah ee dawladdiidka ah labada dawladood waa daris cadawha calaamad hadduu dhaxayso aan garan karana ma lahan laakiin ma aqbali karno caalamkana waa arkaa waxaan meesha yaallo in cagaf dal kale laga keenay ay ciidamo burcad ah oo dalkii Soomaaliya dhibaateynayo oo qarannimadii Soomaaliyeed diidan inay noocan u qotaan cagafyo ugu qodaan wax la aqbali karo ma ahan waxaan rabnaa dawladda Kenya baaq baan u direynaa oo dariska nahay ilaahay baa daris naga dhigay anaka maana dalbanin darisnimada dalka Kenya waxaan rabnaa ciidamada baagaadiidka qaranka Soomaaliyeed uu leeyahay oo calaamadda booliska ku buufsan oo kuwa militariga ku buufsan oo lala galay gudihiina baabuurtaasaan rabnaa inaan helno oo aan ka helno dawladda Kenya sababtoo ah dal Soomaaliya oo meena cararin marka horena dal Soomaaliya kama soo gudbin halkan markii la qodaayay oo cagafta dalka Kenya laga keenay halkan qodaysay dalka Kenya kama soo gudbin nimankaas saaka dagaal baa dhacay ciidamada Soomaaliyeed ciidanka militariga sugidda iyo booliska waajibaadkii halkan ka guteen oo u mahad celinaya say u ilaaliyeen xorriyadda dalkooda qarannimada dalkooda oo geesinimada lana waa u mahad celinaya dawladda Kenya oo aan dariska nahayna waxaan ka rabnaa cagaftan dalka Kenya laga leeyahay waxaan qoday oo dhufayska intaan la eg jeexday oo tarjayga ah isla gaadiidka ay wateen godadka intaan la eg u qoday waxaan u baahannahay oo uga baahannahay laamaha amniga dawladda Kenya annagu qori hadduu xaqiina soo maro waa idin celinaa marqaati bay leedahay qori haddii dawladda Kenya lagala soo goosto oo xaqaygu u soo aado waxa gacantoodu ay gashay ay tahay waxa gacantoodu ay gashay ay noqoto ciidamada ama laamaha amniga meel ay gacanta ka soo qaban karaan waa soo qabanaa waxaan rabnaa hubka dawladda Soomaaliyeed ay leedahay calaamadda booliska ku buufsan dalkiina galay dawladda Kenya arrintaasaan ka rabnaa gaar ahaan laamaha amniga ee Madheera ka shaqeynayaan ka rabnaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin